caawa aragteenu waxay ku saabsan tahay ahmiyadda ay leedahay tarbiyaddu. Dadka Soomaalida dhaqan ahaan tarbiyadda ilmuhu waqti dheer ma ay ahayn tarbiyad cilmi ku dhisan ama leh itijaah ama jiho loo raaco. Tarbiyadda Soomaalidu ma aysan lahayn runta marka laga hadlo. Waxay ahayd tarbiyad aan loo diyaar garoobin ilmaha qaabka loo barbaarinayo. Maraaxil bayna soo martay oo sida dowladnimadeenuba ay maraaxil u soo martay ayay maraaxil u soo martay. Waqti dadku reer guuraa ahaa iyo waqti dadku uu ahaa Soomaalida magaalo la soo galay. Wixii adigu 1940 iyo afartameeyadii adigu dheh horaankeedii ayaa dadka Soomaalidu bilaabeen xoog inay magaalooyinka u soo galaanin. Ka hor miyiga aad loogu badnaa. Caqliga dadka Soomaalidana lama jeclayn in la dego magaalada lama jeclayn oo dadka Soomaalidu way ka faani jireen magaalooyinka. Way ka faani jireen dadka reer guuraaga ahi reer magaalnimada iyo dharka magaalada waa la isku caayi jiray oo dhaqanka miyiga waxay ahayd ceeb qofku inuu maaragtay uu reer magaalnimo sheegto ama magaalo dego ama dhar magaalo xirto ama reer magaal u ekaado. 1920kii 1930kii 1940meeyadii 50kii 60kii ilaa 70meeyadii laga soo gaarayay dadka Soomaalidu aad bay waxay ceeb ugu arkeen reer magaalnimada. Waxay u arkeen dadka reer magaalka ahi reer miyigu u arkeen dad jilicsan aan hawl ka ahayn raaxo jecel doonaya inay maaragtay aysan xoolo dhaqan meel iska yuurura cayrna ah ayay u arkeen. Aad baa maaragtay bay waxay u ahayd marka taariikhda Soomaalida la eego reer magaalnimadu ceeb u ahayd. Marka dhaqankii hore oo miyiga oo tarbiyadda Soomaalidu wuxuu lahaa itijaah jihu lahaa. Waxaana jiray falsafado riixayay qaabka dadka reer guuraaga ah ay wax u tarbiyadaynayaan. Falsafado riixayay baa jiray. Falsafadaha waxaa ka mid ahaa ilmaha la korinayo dan baa laga lahaa. Koriimadu sideedaba waa inay dan leedahay. Koriimadu waa inay ilmaha marka la dhalo waa in ilmahan dan laga leeyahay. Waa in la soo saarayo oo laga rabo ujeedo qofka uu noqonayo. Adduunka tarbiyadda waxaa lagu xisaabtamaa iyo manaahijta iskuulada iyo manaahijta waxbarashadaba ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay dadka la soo saarayo ayaa waxaa laga rabaa dadka waxaa laga rabaa habfikirkooda kartidooda adduun araggooda qaabkay adduunka u arkayaan qaabkay u noolaanayaan aqoontooda waxyaabahaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaabo oo koriimada la socda oo laga rabo dadka. Marka reer guuraaga Soomaalidu waayadii horeeto 100 sano ka hor waxa ujeedkoodu ahaa inay soo saaraan ilmo karti leh oo adag inay soo saaraanin. Waxa ujeedkoodu ahaa wiil iyo gabar gaajada u adkaysan kara. Xataa gabdhaha waa la qadin jiray. Wiilasha sidoo kaleeto waa la qadin jiray. Ceeb bay ahayd cuntada fara badan oo la cuno. Cuntada in lagu daahaa waxay ahayd ceeb dhaqanka carruurta marka la tarbiyadaynayo. Sidoo kaleeto waxaa la bari jiray xanuunka. Waxaa la bari jiray macnaha usha oo kaleeto inuu xanuunka u dulqaato. Gabdhaha oo kaleeto wiilasha oo kaleeto waa la qanjaruufan jiray. Adkaysigooda la eegi jiray iyagoo yaryar. Sidoo kaleeto waxaa loo tarbiyadayn jiray 7 sano 8 sano markuu soo gaaro wiilku inuu aabihiis meel 2 habeen 3 habeen loo dhaxo uu u lugayn karo oo 3 beri iyo socon karo oo biyo kala raadin karo si marka uu 12 gaaro uu isagu intuu rati u kaxaysto meesha reerka biyo uga keeno. Hadda waa 12 jir wayaga ku gabyaya wiil 12 jir hadduu lali ahaan waayo hadduu macnaha ahaan waayo nin raga wax jira ma aha. Marka qaabka ay u tarbiyadayn jireen wuxuu ahaa adkaysi kow. Sidoo kaleeto waxay u tarbiyadayn jireen oo isticmaali jireen in af Soomaaliga xoog loo baro. In la baro suugaanta ilmaha isagoo yar in lagu ababiyo in la baro suugaanta in la baro mahmaahayaha in la baro hadalka sarbeebta ah in la baro gabayga in la baro maaragtay masaa'ilka adag in la baro galaka hadalka. Waxaasoo dhan baa lagu tarbiyadayn jiray in laga dhigo codkar in laga dhigo geesi in laga dhigo fardafuul in laga dhigo dagaalyahan
waxaasoo dhan ayaa tarbiyaddii soomaalida oo miyigu ay markii horeta ku salaysnayd. Marka haddii miyigii laga soo galay oo dadku uu magaalada usoo batay oo magaalo lasoo tegey, inkastoo tirada saxda ah oo hadda soomaaliya dadka reer guuraaga ah weli ay badan yihiin, waayo miyiga carruur badanna waa lagu dhalaa oo biilku ma badna, wax yar baa dadka iskaga filan miyiga degan. sidaa aawadeed marka tarbiyaddaas waxay leedahay itijaah. magaalada markii lasoo galay waxaa dhumay dhaqankii tarbiyadda oo ahaa ilmaha